السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدوا أصحاب قارئة قفت إن الله ليس ونذيف قرن وحين لا ذهي صدوا بكي واي ماشي لو بدر الله تسار سيأذن غطو قفوا وهرية أو ماركتي أمال وسلام يا ولا شيء thank you فيديو وعشر جريس أدبم بسلام يا أمال زاحبتي دقائق بيك الله يكدقو يوتيوب كلا صحو هل كاتب بلنت إنوتها يوتيوب كان هول باك صحوته وقاعد هول له يا كنت شيء برنامج لا ده كسر ودليل أي بهذا ليس نلفه مع قفتان ليس ضد بهذا كنت شيء على برنامج كسر قيد قاضي ما أنت محامي صوت لي أيوة هو أكتين فرين دام كذا بيسان أو أديك جالسين قبل كبري دليل كل نور بفرين تاني سكالة أنا وحواي كنت شيء بين تأيو هوسي وحاسك قريقة qofkii kaliya baa halkan joog kara qof kale ma joog karo marka sheer gareey fariinta waxay ku socotaa gobolka bari gaar ahaan waxay ku socotaa dadka dega bari ilaa ay gadafo maanta waxaan halkan horta hambalyo uga diray wiilka ka soo jeeda gobolka bari xaqa waxa la yiri hadii afka la qabto feeru wax ka dhaha mideeda labaad qofka bini aadamka karti ilaahay siiyay awood ilaahay siiyay dadnimo ilaahay siiyay hadaa si kasta u dabasho hadaa si kasta u qariso hadaa si kasta isugu daydo inaad maarka cagta saarto ma saari kartid waa la ogyahay gobolka bari inuu yahay meesha Puntland taagtay meesha Puntland ay ku dhisan tahay hadii iyada waayana ay baabaa tahay laakiin yaa ku nool waay yaa jooga waay dad waxaa jooga anigu hadaan dhaho dad iyo duuyo waxay yihiin ma garanayo dambi kama raacayaan malayn wallahi hadaan dhaho dad iyo duuyo waxay yihiin waxa meesha ku nool lama garanayo dambi kama raacayo because qofka bini aadamka markuu yan aqoonin faaligiisa iyo waxa uu yahay iyo qiimaha uu leeyahay de isaga oo wax walba ka sareeya isaga wax walba ka qiimo badan baa qariya mana aha waxa qarinaya qof ka awood badan waa isaga wax isqarinaya marka horta waxa hadaan dhaho daasway u leeyahay hadaan dhaho halkaas dadka jooga duunyo iyo dad waxay yihiin lama kala saari karo daasway aan dambi iga raacay because waxa uu awood badan haday dhaqaale noqoto haday noqoto magac loo soo hooyo Puntland haday noqoto dulqaad la muujiyo iyo sirc kasta iyo rafaad kasta lagu jiro oo loo dulqaato oo marka la fiiriyo danta iyo xaaladda iyo situationka meesha ay ka unkanto ama ka bilaabanto ama haysada waa dhinacaas kan haddana meesha ugu liidata la caayo ugu xun waa iyada laakiin maanta maxaa soo baxay fiidiyowgan dhalinyarada iska leh dhalinyarada waxaan leeyahay war had aad baan soo dhaweynay horta dhalinyarada Puntland ka dabaaldegtay maanta u dabaaldegtay sabood garaysay dhinaca galmudug waxaan leeyahay intaan xagga Puntland gelin horta maanta waxa muuqata wixii la isku shubay iyo dadka la kala xiriiray dhalinyarada markii la kala xiriiray guushiinu way kala maqnay mid garabkaaga istaagi lahaa magac ku siin lahaa sida wiilka maanta ka soo jeeda gobolka bari gaar ahaan Boosaaso ka soo jeeda guusha uu keenay ya uu keenay galmudug waxaad hortaagna oo celin jiray tuug raba inuu ku cuno tuug raba inaydina isdhexgalno isjeclaanin sababta maanta waxa cad inaad isjeclaanaysiin inaad galmudug iyo bari ay maanta isku dhex jiraan in ay dhalinyaradu maanta ka dhaadhici karin cunbaatiin ama reer hebel baa kala tihiin oo laba qolaa kala tihiin oo laba saaka kala tihiin maanta lagama dhaadhicin karo maanta guusha iyo magaca galmudug haysato nin reer bari yaa keenay maanta dhalinyaradu baa maanta saa isu xambaarsan waxaan ka fili doonaa sida iyo si ka daran inay isu xambaarsan doonaan isagana ay u abaalgudi doonaan iyaguna ay noqon doonaan dhalinyaro ka qayb gasha markii dhinaca bari dhalinyaradoodu ay is-abaabisho oo la timaado iyaguna ciyaar dhalinyarada barnaamij soo noqonaya galmudug waxaan leeyahay horta hambalyo guul iyo gobonnimo waxaad ka gudubteen oo maanta inay caddaatay waxa la isugu kiindiraya inay ahayd in layn kala daadiyo inaan guusha mid kale oo xoogaa kaa xirfad badan ama walaalkaayo garabkaaga istaagi lahaa aanu garabkaaga soo istaagin tii waa ka gudubteen waxaan leeyahay hambalyo ilaahay inii siyaadiyo dadka wanaagsan wax badan baa inii soo raaci doona wax badan baa inii imaan doona dad badan oo xirfad la heli doontaan ka faa'iidaysta dadkii ay u dhasheen ka faa'iidaysan waayeen idinka intaasaan leeyahay
laakiin waxaan aad ula hadlayaa dhalinyarada ku nool dhulkaas waxaan leeyahay horta waa aragtiin xirfadiina waad aragtaan dadnimadiina waa aragtiin in marka lagu gumaysto meel yar oo la haysto in lagu gumaysto xafiis yar oo la fadhiyo ya in lagu bahdilo adigoo oo tiirki ah adigoo udub dhexaadki ah adigoo adiga haddii lagu waayo aan waxba la ahayn waxaa keenay ma aha kan ku haysta ma aha midka xafiiska fadhiya ee waa adiga dhalinyarada ah adiga kaa dirsatay adiga kan ku matala sababta goboladaas hadda waxaan ognahay oo xaqiiqa baarlamaanka dad ay leeyihiin in laga saaro dadkaas markii la keenayay waxay ku yimaadeen qabiil haddana waxaa looga sugayaa booska ay baneeyeen in qabiil ahaan lagu keeno ninkii ka eriyey ma keenayo hadda iyagu dib ugu celiyo wuxuu leeyahay reer hebelow iska soo doortay iyagu hadda saa isu haysta oo laf walbiba lafta kale ay caynaysaa oo laf walbiba lafta kale cunaysaa oo laf walbiba lafta kale ay leedahay haa reer hebel baa anaga noo diidan iyo reer hebel baa anaga saa nale iyo reer hebel iyagu baa la isku dira iyagu baa iscunaya waxay isku cunayaan waa inay geeyaan baarlamaanka oo berri markay geeyaan aanay awood lahayn oo berri markii ay geeyaan aanay dhihi karin waan anaa keensaday anuu imatala anaa qabiil ku keenay qabiil buu ku joogaa ilaa waxaa naloo sheegaya waa 4.5 waxa meesha ku dhisan taana waa wax la isu keensaday dowladda dhexaan laga eryi karin xildhibaan adigu aageysatay iska badaa meel la wada dhistay oo adigu aad tiir dhexaad u tahay taas marka waxay tusaysaa inaan gobolkaas dadka jooga xoolo iyo bini aadan midna waxay yihiin aan la garanayn xildhibaanadoodii iyagu ay qabiilka ku keeneen baa la cayriyay maxaad u malaynaya marka wiil yar oo isagu dhahay anigu xirfadaydan ku raadsanaya shaqo ku doonanaya maxaad u malaynaysaa waa middaa marka laakiin maxaa hiiliyey qofka bini aadanka ahi waxa anigu aqoonta aan bartay iyo cilmiga aan leeyahay haddii shaqo kasta haddii meeshaas la iiga cayriyo oo meelaan ka shaqaynayo la iga cayriyo waxay waxbarashadayda lagama haraayo way i raacaysaa meeshaan la aadaysaa imtixaankan galana waa ku guulaysanaya sababtoo waa igu jiraa cilmiga laakiin maxaa banaanaanaya meesha ay ka tageen iyo maaragtay wixii ay baneeyeen isagaa booskii weynaya aan ku dhacaysa isaga tahay qasab inuu qof kale doonto marka horta waxaan leeyahay dhalinyarada Puntland ee weliba gaar ahaan bari war isku duuma ha ku xisaabtaminina kuwa xildhibaanada meesha aad geysataan ee awoodda aan u lahayn xataa in kuwii geeya aan awoodda u lahayn waranaa qabiil ku keenay ma ka qaadi kartid anu imatala ee inta laga cayriyo haddana isagii loo diraayo leeyahay markii aad keenta awood uma lihid ma dayn kartid kama hadli kartid laakiin markaa cayriyo adaa ka wadan qabiil kusoo dooran karta oo iyagii markaa is aadayo reer hebel baasaan horta waa meel saasa dhalinyarada marka maxaa looga baahan yahay idinkaa la idinka baahan yahay meel kasta oo aad ka heli karto inaad isku soo bandhigto idinka nafkiinu inaad unit leedihiin isku xiran oo soo bandhiga oo isu taga oo maaragtay awood yeesha oo adduunka xirfadooda la taga oo ku shaqo taga inaad noqotaan sida wiilkaas geesiga ah ee raganimada badan uu sameeyey sababta haddii markii la reebay uu guriga geli lahaa haddii markii la reebay uu dhuuman lahaa haddii markii la reebay intuu cugdad isgeliyo uu dhihi lahaa wallaahi bes waayo meel ku dhuman lahaa dee maanta magaca uu haysto iyo meesha uu gaaray ma gaarin horta waxaan leeyahay ka gudba inaad aaminto in lagu leeyahay waa inaad noqoto inaad adigu qof nool oo ilaahay abuuray aad tahay waa inaad noqotaan dhalinyaro dadnimo leh dhalinyaro isku xiran dhalinyaro fahmi kara waxa socda iyo meesha lala rabo intaa haddaa noqoto waad guulaysanay wiilkaan wuxuu muujiyey raganimo muujiyey wuxuu diiday in la lahaado diiday mar haddii meeshii aad ku dhalatay aad ka marayso in lagu dhaho no adigu ma tegaysid laakiin mid anigu aan ina adeerkaya ama anigu aan xafiiska u fadhiyan geynaya dee aniguna xirfadaydan la shaqo tegaya maantana waa midda keentay meesha la marayo ama hala ooyo ama yaa la ooyo ninka meeshaas damcadda iska leh ee dadkaasna dhex galay bulshadiina tusay dhalinyaradiina inay geeskaa ka gees aanay dhagaysanin ee iyagu isdhex galaan oo magaca keenay inuu nin reer Puntland yahay intaas waa sumcad laakiin yaa sumcaddaas leh waxaa iska leh reer bari baa iska leh iyagay tahay inay dareemaan in dhalinyaradooda qiimaha leh aan la ogolo inay soo baxdo laakiin la ogol yahay in waxooda la isticmaalo in iyaga hantidooda la isticmaalo in naftooda la isticmaalo in xildhibaankooda la isticmaalo inay yihiin maaragtay say waan nasiib daro dhalinyarada marka waxaan leeyahay aad baan usoo dhaweeyey dhalinyarada baabuurka intay iska buuxiyeen bannaan baxaya ee hambalyada diraya because waa wiilkiini markuu inin yimaadaan xambaara xaflado u dhiga kii idinkuna diyaar garooba oo u diyaar garooba inaad adduunka iska daa gobolkaasi gobol kasta oo Soomaaliya ka mid ah aad qayb ka noqotaan gobol kasta inaad ka noqotaan inaad tagtaan u diyaar garooba inaad tihiin muhiim inaad tihiin tiir dhexaad tihiin laakiin aad xishoodkii
iyo qofku markuu maaragtay wax xeeriyo aan lagu fiirinayn ee lagu arko sideedaba qofka dhaqanka la dhaho yaa qofka dhaqanka la dhaho oo la caya waa qofka xishooda waa qofka wax xeeriya waa qofka aragtida dheer leh ee fiirinaya waxa soo socda ee waxa markaa taagan situationka markaa jira aan ka ficil qaadan qofka laakiin ka ficil qaata maanta haysataa maanta bootayn kartaa maanta daalka awoodiis waxay ku soo dhacdaa inuu ceeboobo awoodiisu intaasay ku soo dhacdaa naano obax kalluumaysiga waa Puntland maxay tahay Puntland nimankii madaxda u ahaa Cali Faaraxo nimankii madaxda u ahaa yaa maanta waa ku marada ka riday adeer oo ceebtaada soo bandhigay qabiilka iyo qurunka iyo kii aad ku geynaysay iyo kaad ku keenayd baad ku taalay ka bax meesha ka bax adeer meesha qurunyo waxaan leeyahay marka Puntland inta ka dhex kalluumaysan hadda iyaga u kala gashanaya balna waxaan ku qaaday inta iyaga u gashado kooda xildhibaanka iyo kooda odaga iyo tuugooda maaragtay marada wata cimaamada garabka saartaba hadday nectooda halka iman been baan kuu sheegay hadday waa wari aan ka dhigin dhalinyarada waxaan leeyahay kaca dantiina garta guusha idinkaa keentaan idinkaa la idinku faanay idinkaa wax ku ah laakiin waxaad noqoteen waxay yihiin aan la garanayn aad baan ugu hambaliyeynayaa wiilka gaaray inuu isagu diido inuu fariisto كل كسر أو دول متكلم عن محلول مير كسر أو أد وحاجة لا أد بتضاد كاري واقف قبي اللي ما كان اللي ربي هذا هكذا محكوي إنه مير كلا وكاري راتبي إنه أمة تقدره إنه الدولة تحكمه قيمه إنه مير كجارسية يسجل على وديني فا يسجل على طبعا دولة أنت تسيجو لا ده هي أرض وين بلوغ باي إنه ماشي لأني نيجي بقولي بلوغ سجى فرنسا أكثر هذا ما بلوغ ماشي كبيره بلوغ أصلا باي تاس بريما هذا أكثر سفر إذا دارت إنها دفاع ده أما عرفت إنها تضاد قفت أسبوع جرانيس أسافر يسوق تيف واحد تتعرف المحل قبنا محاول يلا قرصنا محاسور على اللاين وصوصارنا محاسور على اللاين وصوصارنا ما يسقرنا سافر يصدق دفاع أفكارك تصبط جري أفتيو أفكار على الجال ستريف على لكن قف ماشي أنت صار شو نحن على سوق جل كبا أفكار على اللي فنا والله صار يا ماشي because قفك فرط مرة هرته قف عن سوي كيسة وسارن كده قف عن ما تميل سافر يسكر يا روان قف ماشي أنتو صوب ولا صوب قرينا إنه هذا هذا أول بيوصل لسان ماشي ودراما مرة تعرفين هذا بود كده مرة ثانية أروح أمانته سافر يسوي هذا لماذا ديالا ما ده لماذا ديالا تكبر ثاني مرة حلوانكي أكين سطي وامدك شنطة دولار كعب دورناي أود لهين تنمى هيسن وحو يهجرين markii la arko inuu xoogaa cadaalad kii la arko inuu xoogaa xaqi ka hadlayo sideed xildhibaan la ceebiyay waxaan leeyahay taariikhda ay qoraysa dadnimaad leedihiin waxaad diideen in xaraam cuntaan gudinkaan leeyni ku korin sababta diinkiina xaraam ku jiri lahayd waa qaadan lahayd xaraamtii aad diideen maanta ceebteedu way taalo maanta waxaad ka doodayseen maanta idinkoo leeyni ceebiyay oo dambi maxaakiim maxkamadda jooga wala maanta qiyaam warba jooga wala maanta qiyaam warba jooga waxay kolba meel uga qarxayso oo kolba meel uga soo baxayso waa cuqubada wixii la isku raacay maanta ceebta banaanka taal kuwii diiday waa kuwa la ceebiyay maalinta la soo dooranay qabiil baa lagu keenay hadda kuwii ceebiyay qabiilku iskama keeno ma dhihin aniga waa ceebiyay kana waa ku bedelay isla iyaga way u direen sideed la ceebiyay sideed qabiil ay ka yimaadeen baa taa isoo haysto isu cunaayeen weliba kuwa aan anigu xogogaal u ahay oo iyagu isu muuqdaan oo iyagu isu quraan mooyaan caqli kale lahayn iyagu inay iskala dilaan iskala quraan mooyaan caqli kale lahayn inta kale u nool kooda wax bartay iyo kooda maaragtay meel gaaray wuxuu ka taliyaa oo kaliya oo aqoontiisa dhan uu qalinka usoo qaata ay noqotaa inuu qabiilada isku diro hadday meel ku jiraan iyaga is haysta hadday meel fadhiyaan iyaga dad u sabood galaya waxa weeye waa mikrofoonka la dirsado waay mikrofoonka hadda ma ee qofka loo dhiibo ama mikrofoonka qoladaas kuwa aan ogahay oo isgaranaya mikrofoonka waay mikrofoonka la diro markii la rabo in maaragtay xaalad kacdo iyaga la diraa waa mikrofoonka meesha ka jira oo la adeegsado ما أنت كلام دارنا بترجع كده بتاع ما أنت كلمة أو شدمه الله الله أو أي ما أنت مكرفان كذا شيء ما تقنين وما أنت حالة أنت كعذر جبنا الدمية على دار بترجع لون هذيا أو لحظة هذا ولا جريا وتفي عم بالون جريا أكثر تكوني كإستاذ هدو حدباني هاي هدو عقلي هاي هدو بلدجي هاي هدو ميت كلو بنها بجريا هاي كله وهذا ما عصبنا ولا جريا ما أنت كليش خير أنت كلام ولا الدمية ويدلتنا dad noocaas waay maanta sideedii qabiil ee laga cayriyo dadka maanta iyaga is haysta yaa geynaa may reer hebel ma geynaa reer hebel haddii laga qaaday reer hebel la geey reer hebel wax laga rida waa reer
maalintii la cayrinayana iyaga wax laga weydiiyo mal xataa weydihi kari waay war anaa geysaday sad cayrini ilaa shar qabiil baan ku keenay maantana qabiil buu igu joogaya ma dhahayan waa sababtaa marka wiil yaro ciyaartooy maxaad ka filaysaa marka wiil yaro ciyaartooy oo la arkay inuu xirfad leeyahay oo la rabo mid aan jirin ama muuqanin ama aan la arkaynin la rabo in la soo saaro si isagii booskiisaas qof qarsoon loo soo bixiyo la raadinayo maxaad u malaynaysaa laakiin raganimo dheh marba hadduu maanta heerkaa maraayo marba hadduu maanta maraayo ay gaartay dhalinyaradii haddii inta la idiida intaan leeyahay soomaaliyaan leeyahay kana inka wada dhexeeya kan maaragta maanta inuu kan idinka dhexeeyaad sheegteen waxaad ka gudubteen dhalinyaro maanta in haddii meel lagu xiro aad halkaa fadhinayso no waad ka gudubtay waad ka gudubtay maanta waxaad maanta caddayseen dhalinyaro aniga haddii meeshii aan ku dhashay aan wax ka waayo meesha igu xigta baan leeyahay sababtaa soomaali baan kan baa idinka dhexeeya qabiilka idinka dhexeeya abtirka idinka dhexeeya haddaa wada tirsataan ama habaryar ama eedda ama iyay kan ugu fog baa hooyadii ama aabihiis noqonaya kuwa kalena waa isla dhashay ama eedday kuu tahay ama habaryaray kuu tahay ama ilma abti baa tihin ama ilma adeer baa tihin ama ilma habreed baa tihin taasaad caddayseen ku kasta oo meelsaa loogu bahdilayana waa inuu xisaabtamo oo dhaho okay haddayna inta wax ka waayay dee soomaali soo mihi gobolka igu dhadhan baan leeyahay gobolka igu dhadhan baan leeyahay marka wiilkaas wuxuu caddeeyey markuu ka waayo puntland meeshii uu rabay iyo wixii uu ka filayay oo weliba hadda ka horna uu goolal u dhaliyo hadda ka horna uu sumcadu keeno lagu qadarin waayo inuu dhaho okay galmudugna waa dalkaygi waa waddankaygi waa dadkaygi iyagana aadaya iyaguna ay soo dhaweeyaan waa guul waa sumcad ay gaareen reer galmudug because markuu u tagaayay reer galmudug qabiilkumay qaadan qabiilkumay dooran reer galmudug gob saasaa la dhahaa ummad rabta in la isdhex galo ama laga gudbo cudur jira reer galmudug oo kaleetaa la dhahaa meesha uu u dhashay waa laga reebay because of qabiil galmudugna maxay samaysay markuu u tagay isagoo la qabiil ahayn bay soo qaateen because waxay fiirinayaan oy og yihiin faalidiisay og yihiin waxay og yihiin dadnimadiisay og yihiin tii ay filayeen bayna heleen maanta tii ay filayeen insha allah waxaan rajaynayaa koobkana inuu nii keeno koobkana reer galmudug inaad qaadaan baan rajaynayaa insha allah waana ka filaya waana leeyahay dadnimadiisa sababto ciyaartiisa dhan waan daawanaya waan la socday ciyaarta dhan waan daawanaya xiise gaara ilahay sababto sheekada dhan waan hayo reer galmudug baa abaalka iskale reer galmudug baa waxay keeneen kor aan waligaa dhicin soddonkii sane la burburay kor aan dhicin adigu bal isdhex dhig adigu bal runta sheeg ninkaagaan daawanayo maantay meesha aad u dhalatay markii lagaa caydiyo meel aad isleedahay alla qabiil ahaan badiina intay ku qaadato ay kaa faa'iidaysato ma kaa faa'iidaysato mise waxay muujisay taariikh aan adduunka hore u dhicin bay muujisay taariikh bay muujiyeen waana ku ammaanaya waana kusoo dhaweynaya waana filaya kuwa badan oo sidaas u leh quality oo u leh waxtar baa jira ka faa'iidaysta sababta qofku markuu rabo inuu soo bixiyo waddankiisa inuu sumcadiisa kor u soo qaado in meesha uu gaaray ka soo baxo wuxuu raadsadaa dadka nool buu raadsadaa wuxuu ka gudbaa qabiilkuu ka gudbaa wuxuu ka gudbaa reer hebelkuu ka gudbaa wuxuu ka gudbaa kanaha meesha ku dhashuu ka gudbaa sida ay galmudug uga gudubtay galmudug waxay ka gudubtay inay raadiso mid meesha ku dhasho reer galmuduga inay raadiso mid reer galmudug ku abtirsada laakiin maxay raadisay waxay raadisay quality bay raadisay waxay raadisay yaa qiimo badan waxay wax ku qiimaysay waxa ay raadinayso inay ku soo baxdo oo magaca ku hesho oo meel ku gaarto yaa u dhigma haddii ummaddu xataa dowladda haddii qof walba meesha u qalmo la geyn lahaa mar hore in dowladda heli waxa dib inoo riday waxayna habsaamiyey waxay nala haray waxa weeye nadiifo caafimaadka wax ka taqaan baa waxaa la geynayaa dhaqaalaha nadiifo dhaqaalaha wax ka taqaan waxaa la geynayaa caafimaadka maxaan ka qabanaa maxaan ka qabane nadiifo taqaan guri kaliya si loo maamulo ilmo loo koriyo waa waxaa la geynayaa wasaarad maxaan ka qabanaa waa isku dhex qasmi because waxaa aqaana la tegaya marka taasi ka gudbaniyo waxay fiiriyeen okay waxa aad raadinayso yaa magac ka heli magac bay raadsadeen waxay dooneen inay gudbaan waana meesha taagnaan sababta waxay dhisteen dowlad bay dhisteen waxay rabaan inay adduunka la tartamaan waxay rabaan inay dhexgal maanta garoonkii ilaah baan inuu ku dhaashee dadkiina qabiilka ka fiyow markaad runta sheegtaan bal soo qora maanta meesha arkaysa ee fardaha ee dadkii meel istaagaan ay waayeen ee kuwa kuraasta helay xataa ay arki waayeen ciyaartooda ku qasabtay inay meelaha koraan ilaah baa inuu ku dhaarshay wiilka dhalinyarada ee maanta farxadda haysta ee maanta nabadaas wax ku daawanaya ee maanta raba wiil kale oo meel kale u dhashay inuu aqoontiisa iyo xirfadiisa uga faa'iidaysto magacna ku helo buu nin rabaa inuu xabad intuu u dhiibo $6 ku bixiyo
buunin rabaa intuu mikrofon qaato ciyaalkiisana uu dibadda geysto inuu isaga dhaawaco oo u diido farxadda oo ku celiyo gurigii iyo hulkii iyo xabadii iyo dhiiggii iyo maydkii u xambaaraya ma ka yeelaysiin marka idinkaan ini weydiinayaay ma yeelaysaa marka ma yeelaysiin dhalinyaro no dhalinyaro taas waxaad ku gaarteen maanta sidaa arkay inaad u daawataan sidaa arkay u dabaaldegtaan sidaa aragtay u faraxdaan waxaad ku gaarteen maaha wax kale waxaad ku gaarteen idinkaa diideen qabiilkii idinkaa diideen dulmigii idinkaa diideen in aad dhegaysataan khaacintuuga inaad dhegaysato adaa diiday waa diiday waxaad tiri no markaad diidana maxaa kuu soo baxay mirahaas inaad gurataa kuu soo baxay maxaa kuu soo baxay inaad faa'iido oo faa'iido aan la koobi karin ahaysaa kuu soo baxay waana midda maanta ahaysiin waa midda maanta kuu siisay inaad heerkaa gaarto waa midda ku siisay aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa reer galmudug because waxay ka gudbeen qabiil bay ka gudbeen because awood waxay soo qaateen qof kasta oo quality leh raadsada in leeyahay adduunka waa dhaafaysan wallahi maxay 2 years magaciinu kor buu aadaya 2 years qiimihiin uu soo baxaya 2 years ummadda isku xirkeeda isku fadhigeeda iyo meesha laga maamulayo ku fiicnay baa ilaahay idin dejiyay wallahi waa ku guulaysanaysiin dhalinyaro badan oo quality leh oo meel aadan la'ana wayna soo aadaya haddaad sidaa hadda aad samaysaan mar kale haddaad wax walba meel walba aad sidaa samaysaan meel walba aad fiirisaan hadduu xafiis yahay iyo hadduu ciyaar yahay iyo hadduu wax kale yahay inaad u raadiso qofka ku habboon ee aadan u raadin qofka qabiilkaada waana midda maanta qabiil faa'iidada u leeyahay iyo qof meel qabiil lagu maamulo waxa ka dhasha iyo waxyaabaha ka soo baxa midda Puntland ka dhacday waa midda uu dani sameeyay waa dani muxuu sameeyay maanta waa la socotiin waa dhagaysanaysiin muxuu dhahay inaynu maaragtay aanan gobol u fiirin because uu ogyahay gobolkiisu rabaa inuu soo saaro wuxuu rabaa in adeerkiis oo aan quality leh inuu soo saaro mid kaloo quality leh uu lugta saaro laakiin maxaa laga faa'iiday waxaa laga faa'iiday ninka in weydiinaya waa ujeedin fartuunji bal u dhigo abay taleefanka bal u dhigo abay saa wuu kugu soo maqan yahay marka aad iyo aad baan ugu farxaya laakiin dhalinyaradaas halkaa u dhalatay bari u dhalatay waxaan leeyahay maanta cashar haynii noqoto maanta waxaa aragteen waa inuu cashar haynii noqdo waa in aad aamintaan inaad tihiin ubuucdii Puntland inaad tihiin oo aad iska daysaan meesha aad taagantihiin aad ka gudubtaan waa in dareenkiinu shaqeeyo waa inaad leedihiin waxa aad jecesha inaad sabood garayn karto waxa aadan jeclayn aad diidi karto intaa haddaa la timaadaan waad guulaysanaysiin wiilkaasna waxaan leeyahay guriga gobonimo ku kasta oo quality ciyaareed leh oo maaragtay anigu hadda ma dhahayo Puntland waxa laga qabto ama ciyaar dadka maamula waxa laga qabto ma dhahayo because waa meesha cadaalad xumo iyaga sumcadooda u raadiyay inay dhulka u gasho because qofkaani adiga intaasoo jar ku ciyaar qofkan hadduu cusub yahay ama aadan ogeyn quality-giisa waa dhihi kartaa waa reebi kartaa laakiin qof intaasoo jar waa ognahay wiilkan Puntland inta jar ku keena ama ciyaar u geliyo uga saaray in maaragtay qof kale la geliyo laakiin isaga wax walba iga qiimo badan aniga muxuu tusay inuu isagu kalsooni isku qabo inuu waxa uu yahay ku kalsoon yahay tiina uu la shirtagay qorana ku soo dhaweysay ka gudubtay iyadu inay reer wax ku raadsato ka gudubtay iyadu inay maaragtay wallahi gol baan leeyahay reer galmudug gol baan leeyahay because iyo waxay ka gudbeen no anigu waxaan rabaa magac inaan helo anigu waxaan rabaa inaan guulaysto anigu waxaan rabaa inaan hore u socdo muxuu qabiil jeega qabiil waa midka aan rabo inaan ka bixi nasabnimo taasaa la dhahaa meesha u dhashay maxaa looga reebay guushi xataa u soo dalanaysay hawshii uu u haayay waa la fiirin waay because waa la ogyahay inay xoolo iyo dad mid ay yihiin aan la garanayn baa la ogyahay guul iyo gobonnimo aan leeyahay dhalinyarada waxaa lay cashar haynii noqoto kuwa maanta markay arkeen u dabaaldegay oo soo dhaweeyey waxaan leeyahay iyagana maasha allah tabaaraka allah anna waa idinla soo dhaweynaya waa idinla farxaya guusha iyo magaca iyo sumcadda koobkana waa sugaynaa anigu isagaan taageersanaa weligayna taageeri jiray meeshuu ku jiraan mar kasta taageeraya koobkana waa sugaynaa inaan u dabaaldegno insha allah reer galmudugna waxaan ka sugaynaa taariikh inay dhigaan oo sida ay taariikh u dhigeen oo ay ugu fiiriyeen aqoon iyo karti u fiirsadeen inay haddana guushaan imaatay wacdara ka dhigaan oo wiilkaas qiimaha uu leeyahay iyo quality-giisa ay fiiriyaan waana ka filaya waana samaynayaan because qofka waxaad garataa bilowga hore waxa uu yahay soo baxa qofna ma qarsoomi karo haddaad maanta dhamar ay isaga kay taagto dee waxaan ahay ma iga reeban kartid
aqoona wata ma ku galayso waliga ay caydi waliga ay reeb waliga ay qari maalinta imtixaanka lagu taam ku saarayo maanta imtixaanka iskoolka Soomaaliya kadib markaa dhiganayso cunug kasta oo maarta bootay markii testiga la galo kala baxayo markii testiga la galo waa la baxaya ilma saar markay u fariistaan 15 minutes iyaga fadhiyo warqadahooda dhiibay halo salaamu calaykum haye magacaaga meesha iga soo wacaysa ها معان توبي صوته وسيفي عن معان صوته ولا شيء أنا كم ذكر أنا واحد سوى كذا قلت له هيا واحد كذا عيدا آد فورنمدي عيب وحواي صار بك وديرة ذي نمك دولة عيدا هيا ويلا سيارك قلت له قلنا قبيل ما بتقول قلت له واحد يس هاي قف درجة على درجة هنا قف درجة بيعه ولا قف إلا أنا وحين قبلنا قلت له خير له هاي سمعت قلت له مسعيد عدنان ديني وديرني على روح صار ما يمشي ديني وين كياك وما تقول كلمة يقول خطوة كلمة لا يقول لا المهم سامع على كائنا لا كويس تي عن كويتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وين كياك وانا نقدر كذا وعين الصباح كل ما بحاول كذا وحكي تبتل كذا حتى يقال كذا ما شاء الله ما شاء الله because waxay ka gudbeen inay qofka qabiil ku qaataan waxaan la jiraa wiilka yar oo soo kacay oo sumcada ku jira inuu qabtooyay tahay oo tan meel la iyo dhul oo u kala hadlin u kala ما شاء الله سيدنا ما ركع هنا عليه ماشي وبدل مركع وحبيشه سمعته يسمعني لما وكاله إذا عمرك ما كسر كذا وكسر في مصري قد ما لا ما ما وكاله هنا على وحي كويس هنا على سيدنا ما ركع ويل كان حتى عمر عياره بس عيار ولا صعتها مالي وككل مالي وككل سمعته كان جرى ولا صعتها إن على رسالة أركا إذا بتوعي إن على رسالة أركا مركا إلا الرياضة أو ويلكي سواء كسر جرى ولا ماشي بري وماشي كلية ولي وكبر سعل إن على سعل إن على سعل وكبر سعل إن على ما شاء الله قف كسر ضمير له وقرنايا ورق المذوب ما أنت يوحنا وتارينا ما شاء الله تبارك الله دواء واسكحيرها أمد الصومالية وين بوكستي ما شاء الله تبارك الله لأن يردي ما أنت إله ما كنت أعطي قف كسر ضمير له بل فيري قف كسر عقل له بل فيري دعوة في اليوغا يدرم دعوة إله ما كنت شيء كاغ قبيل كاغ على فديو كاغ قبيل واكن تنا لغا دحلا قبيل متنا لغا دحلا هي بدنا يكدحلين kala sooc iyo ana maanta sadaqada ku fadhiya iyo ana bootaynay iyo ana adeer nin walba nasabnimadu waa u dhalasho qofka nasabka oo isuba oo dadnimo iyo damiir iyo wax ku qal iyo karti inuu leeyahay markuu isuba ma bootayo hadda aragto qof faanaya ama qof bootaynay waa qof eber oo sir ah oo maran qof sir ah oo maran qofka laakiin isuba ma bootayo hadda aragto qof aan insaan ahay kana ahay waxaan qabtay saan ahay waxba kama hooseeyaan bentis iyo kuwaan ilma adeer gaal فارح لما أنا وإنا هذا طبعاً جيران كسوق بطي ده ما قبنا يصير لمبر كسوق مركز لمبر كإنا هذا صوق إنا هذا لمبر كسوق واتساب كماشي كجراي لمبر كماشي كلا صوب حسوق إنا هذا بيجي كده حجراي لمبر كسوق إنا هذا حتى على قبل كده أنت كربلا عندي كوسة مغيّة قبل إنا هذا قبل يا يسوع اللي سي هلا السلام عليكم عليكم السلام أباي مقعد ما شاء الله صوق على معنته السلام يا مليكة. هذا باي نواب السلام يا سودو مع انتدي. ما كان عندك ها لا سواي ما واحد وحان ربنا إن لقى قواي كهذا من هذا نعم خير الله بسم الله. إلى المعوض السلام يا هذه يا أصحاب هذا نتكلم وحان وحبليين يا كلمة وما تبغي ستي. إن شاء الله. إن حرفت ما أنت اللي بقول بدليل كذا بقول ما دعوة عيال في الدرام. أنت دعوة بعد ما يستوى الله. محاضر أنت شعور معي. ما أنت على يقول كذا. محاضر أنت ما تشعور معي أنت محاضر على صوت. والله ولا شيء فرحة طاقة ما يغطني كيف بدي أقوى بحدين أنا كيف بدي أسير فوق البيت بالصوت. بدي ما الله ينال بدي ما الله ينال بدي ما الله. ترى بقرصة إن ما رتي خف كاني aqoonta iyo kartida iyo maarta xirfada laha aad qabiil ku celiso ama aad ku celiso maartay hoos geliso qof kalena uu ka faa'iideysto adiga ku taabto walaalaha waxyaabahaas waa waxyaabaha iska nasiib darrada ee maanta Soomaali lagu arkay dhaqamada
ويجران كوبي ويجران أي بدنا طيب قلبي صار حتى قلبي واحد تشقيس والله لا إله إلا الله نصب نصب والله بالله سلام يا ما شاء الله ويلك يا ما علينا يا حفظه آمين وقت الله حفظه آمين عزمك الله حفظه آمين إن شاء الله ما تقدر كذا صومالي وهذا ممكن نحطه قرمضة إنه يا عارف إنه نحطه إن شاء الله guulaystaan u leenahay buntlandna waxaan leenahay hoosa la isugu noqdo nimay oo ku jira ayaanta waxbaa ii jiray bal hoosa loogu noqdo hala habeeyaan leenahay gobolkaasi gobol sharaf loo qiimala buu ahaaye laakiin hadda beryahan uu waxaad moodaa uu soo yarwaalahayo ma garata maasha allah khayr allah marka waa insha allah waxaan kuli wanaagayn doonaa dalkeena allah noo dejiyo soomaalina meel kastay joogtana sharafteeda iyo ciskeeda iyo karaamadeeda ilaahay soo celiyo ninkii badiyana waa bahdeena hadday galmudug badiso maasha allah hambali badida weliba taariikh bay leedahay badida ma aha waxbaa ku jira inaad taariikh hoosaa jirta waxaa jira rikoorka markuu galo moogta rikoorka waa u gashaan kuleeyahay reer guniyo gobonimo aad waa sugaynaa koobka waa sugaynaa inay soo qaado halkan koobka isaaraan fiirin koobka waa sugaynaa inaade aad iyo aad baa salaam si gaar ah ugu hambalyeynayna aad thank you naadeer maasha allah noo qiimayo thank you aad baan kaaga mahadcelinaya maasha allah horta gabdhaha u malaysaa niyo inay gabdhaha qiimo badan yihiin baad u malaysaa halo gabdhaha aad u qiimo badan barnaamijyada oo qiimaha gabdhaha kasoo qayb qaata aad baan gabdhaha ugu mahadcelinaya halo asalaamu calaykum calaykum assalaam waa gabar saddexaad ka war gabdhaha waxa weeye ina adeer si fiican baa lagu maqlaa ku soco walaashay qaali ku soco meesha naga soo wacaysa magacaada ina adeer ما شاء الله كسعينا هذا ولا سعتها من برنامج كسعينا هذا فرحة ما شاء الله تبارك الله هي محاجة اللي يرى هكا عبد الرئيسات اللي هاي تبتدي نوم مودية أيوة وعلا كسي عمرها اوكي qofka bini'aadamkaana haddii uu meesha uu isagu uu joogo uu degan yahay oo degaankiisa uu cadaalad ka waayo meeshuu doonu geli karaa soomaali waa soomaali malana kalena kan reer puntland u dhashay galmudug u tegaya galmudug kan u dhashana puntland buu imaanaya laakiin ma jirin galmudug baa bilowday ma jirin meel adiga abaayo cadaalad adiga meesha u dhalatay markii cadaalad ma lagu leedahay horta galmudug aad baan ugu waxaa malayaa because meeshii aad u dhalatay markii cadaalad darro aad ka joogto meel kalena kama filayso weliba hadda waqtiyadan jira iyo qabiilkan iyo qurunkan maamulka markii laga yimaado cadaaladnimada waxaa ku sameeyey nin ay isaga isku faamilina yihiin sportis kara kuwaasaaba la adeegsadaa yaa kaloo la adeegsadaa kuwa hadda xildhibaanada iyo cayrin cadaaladnimada isagaa ku sameeyey mid kale dhalinyarada reer puntland ee kubaddan hadda ciyaartay talabar waxa dhalinyaradii hore oo usoo ciyaari jirta ma ahan dhalinyaradii hore oo dhan waa la reebay puntland gobolka bari wax lagaga soo daray waa yar madaxweynaha wuxuu yiri markaan ma rabno inaan gobol kusoo qaadano kullaba sii jooga daawo waxa weeye gobol in laga keeno xirfad kasta dadka u leh oo ciyaarta inaan reer hebel loo fiirin ciyaartay mid walba oo xirfad leh in laga soo qabto wixii wax ciyaaraya aan laga fiirsan galmudug waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya wixii xirfad leh iyagu ka haysteen wixii u ciyaari kara isdhexgal bay iyagu sameeyeen soomaalinimay iyagu muujiyeen maasha allah haddana ku wada leen inta kalena soo kacaysa koobka inaan qaadno waayo galmudug baan anaguna ciyaartooyda qiimaha badan meesha laga soo dhaweeyo cunug kasta oo xirfadiisa iyo kartidiisa lagu garab qabto meesha garab qabata oo dhalinyarada dhexgal u samayso oo dhalinyarada isu keenta oo qabiilka ka dhex saarta kaasaanu ka midnahay kaasaanu jecelnahay guul baan leeyahay galmudug koobkan waa sheegay dhammaan dhalinyarada reer puntland ee ciyaartooyda ah meesha cadaalad ka helayaan inay ku ciyaaraan maasha allah sugin cidna yes waxaan waayo waxaan waa dhalinyaro yaryar soo koraysa xumaan iyo ciid dhagahayga caawo ku dhegaystay waa caadi baan u dhegaystay wuxuu yidhi cadaalad xumaa laygu sameeyey نصر والله كل بعض محلي إني قد ملا لنا هيا باي قف كلام كلام هيا السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام أبايدن كيف كبحدة أما يكسر أباي قبل كباي ما تكسر عين هذا كسر هذا من الكلام فوق السلام عليكم الصومالي وباي السلام أنا وهذا السلام حنا نجرا كل ميركا
qofka ama aqoon haddii lagu soo baxay anu habeen maanta keen uma qabeen qabiil waxba ma qabanaayo qabiilku qofku markuu qofkii uun aqoon anigu caawa dhaktar baan ahay oo dhaktar daad sheegaysid qof dhaktar haddii iyada loo dhiibo ama gaashaamid loo dhiibo ma qabanaya no muxuu ka soo saa'idin karaa baala kama soo saa'idin karo waxa anigu gobonimo iyo dad u aqaana galmudug ما شاء الله هنبل يا الله هنبل aqoontiisa intay ku qaateen oo maanta lambar one iyo sumcadii sharaf lagu soo kordhiyay galmudug guurkaas ayana keena guur قول كوكا كان قال بعيا جاي دروا من جايه قد فول جايه كوكا جايه ما شاء الله ادي ثانك يو سو ماتش ما شاء الله ما شاء الله ثانك يو عليكم السلام هذا ويلكا يا اول ابو عياري يران يا هبل ولا ما دهين ما انت محل وريب فرت دبك ماشي وكجرو غير بري اذا ليست والله waxaan idinka ahayn inaan 4 ilaa 9 hadda ka daba barnaamijka dhiganayno ka hadlayno waxaan reer bari ahayn hadda ka daba shaqada waxa ii soo baxay topic aan laga heli karin because very qof kasta markii la rabo in lagu istaago meel markii la rabo in doob loo celiyo dulli daba dhilifa oo calool shaqo shaqaysta oo isaga jaabkiisa kaliya fiirsadaan adeegsado isaga matalaya hadda kuwii la cayriyay kuwa loo diray waa odayada iyo inta iyaga madaxdooda iyo kuwa iyaga keena dadka keena qabiilka ku keena kuwaas loo diray xildhibaanada iyaga ka yimid bay ahay wiilkan yarka waxa lugta saar oo loo adeegsanayo oo maaragtay la leeyahay qof kasta qofkiisa loo diro waa dameero waa la isku diraa iyaga kaliya si xoog qabta ma ogol bal adigu nin meeshiisa raba inay baabacdo meeshiisa nin duulaan ku ah bal adigu sidee waa dad iyaga meeshooda baa laga qariyay xoogooda baa laga qariyay dhaqaalahooda baa laga qariyay iyaga waxaa la isaga dhigay wax aan la yaabayso waa dulmanayaal aan la ogeyn wax ay yimid waa xaainimada وخاينما كنت مد walba ay geystaan waa cadow mid walba ay geystaan iyagu lugta qabtaan wax kalena maaha waa kuwa iyagu ay soo doortaan ee geystaan waay waxaan leeyahay marka dhalinyaro kuwaas meesha inii jooga ee idinka magaciina ku beentela iska qabta tuugada dhashay markaad aragtaan inuu idinkii idinku soo jeesto inuu adiga nolol kuu diidan yahay isaga ilmihiisa kaliya uu ka fikerayo sida wiilkaas samee katab meel alla meesha reer galmudugna waxaan leeyahay war koobtaan u baahannahay raadiya kuwa kaloo haray shaandhay isku soo sameeya group adag oo xoog badan oo keen koobka inaan qaadno oo u dabaal degno oo halkan hambalyada idinka soo diro oo falaawarada idin soo diro baabalan bulun baa halkaa soo suranaya maanta aad guulaystaan hambal yani leeyahay nasabaatihiin maamulka iyo maaragtay dadkooda ciyaaraha iyo isdhexgalka loo xilsaaray waxaan leeyahay koob baa mudantii in koob layna siiyo waayo in madaxda maamusha isdhexgalka iyo ummadu inay isdhex galaan ninka meesha haysta qorqor waxaan leeyahay war ninkaa bila jaraf naga gaarsiin ninkaa abaalmarin sii gabdhaha waxaan leeyahay ninkaa abaalmarin aan siin hala ii soo diro markiisa wallahi abaalmarin baa u diraya wallahi boosadaan abaalmarin u diraya ninka haysta galmudug qaybta isdhexgalka iyo abaabulka iyo dhalinyarada inay isfahanto maanta wixii garoonka ka dhacay qof kastoo damiir leh hooyooyinka qabiilka u fadhiyay hooyooyinka burburka iyo wiilashaas inay kala caranaan u fadhiyay kuwii lacagta ku bixinay waa dhabarjabkooda kii qiimo lana waa qiimihiis wallahi waan qiirooday fardaha ordaaya dhalinyarada meel istaajiyo la waayo awalna dhalinyaro xaggay joogtay way tahriibi jireen dhalinyaro xaggay joogtay guryaa lagu kala xili jiray nin walba meel baa la geyn jiro jira aduu hebel haddaa u gudubto qortay kaa goynaya adigu haddaa reer hebel kowshaa la socodto way ku samaynaya maantana waa aragteen markuu arko qofku in inta uu wax ka waayo xagga kala aadaya والله دكتور بعد دكتور نينك ماشي اسدحقلك قابشه قلمو waxaan ka codsanaya maamulkeeda qorqor waxaan ka codsanaya bilis video igu geeyo qorqor bilis qorqor video igu geeyo qorqor hadaan aaminsan tahay dhalinyarada inay isdhexgasho dhalinyarada inay meesha ay hadda joogto ka sii xoog badato waxaan ka codsanaya ninka uu xil saaran xagga isboortiga xagga isdhexgalka gabar iyo wiil wuxuu doona ha ahaadee wiil qofkaas waa in abaalgud siiso waa inaad ku abaalmariso rikoorka ay maanta dhigeen sumcadda ay soo hooyeen karaamada ay keeneen waa inaad ku abaalmariso والله وانا كو ابال مريسو وانا كو ابال مريسو اد بان سو دويناي markii qabiil laga gudbo oo qurun laga gudbo oo cugdad laga gudbo wanaagaas ka dhashay laakiin inta baraayo ku jirto xumaan aad haysato garabkaaga banaynaysa
ogow nin kastoo fidmo ka shaqeeya nin kastoo kala gogoyn ka shaqeeya nin kastoo ummad wada dhalatoo la kala diro ka shaqeeya saasaa u dambaysa laakiin waxaan kuu sheegaya puntland way kala tagtay waxba yaan la isugu keenin qarqarin mar haddaa aragto meelaha dhalinyarada iyo hoose oo ummad laga soo dhisa haddaa aragto la kala diraayo wallahi dhaawac weyn bay u keenaysaa wallahi arrinta wiilkan puntland dhaawac weyn bay u keenaysaa cuqdadan ku jirin bay kala gelinaysaa oo awal laga hurday dad badan oo awal xeerinaya oo jiifay bay kicinaysaa anigu aad baan dhalinyarada ugu ololaya ma jecli dhalinyaro wax kala qaybiya ma jecli dhalinyaro wax kala qaybiya barnaamijya dhan oo dhalinyaro baan leeyahay website dhan oo dhalinyarada kaliya aan kula hadlaan leeyahay dhalinyarada aad baan u jeclaa qofka soo dhaweeya reer galmudugow aad iyo aad baan ku hambalyaynaya guushana waa sugaynaa ilaahayna waa inay baryaynaa koobka sanadka inaynu la dabaaldegno guusha inaynu la dabaaldegno wiilka inaad qiimaysaan annaguna agtiina naga dayanana guul iyo gobonnimaan leeyahay sumcad baad hesheen karaamaad hesheen qurub baad ka gudubteen in laydinka cararto wallahi dhalinyaro badan baa idinku soo carari doonta meelaad istaagtaan baad waayi doontaan mikoo centralkiba awalba ahaydo awalba waxaan raadinayna intaas ahayd haddaad idinku saldhigataan oo dhalinyarada soo dhaweysaan meel dhalinyaro laga soo dhaweeyo waa laga guulaystaa kanday adiga waa ku baloogaya adiga nuur iyagoo waa ku bedloogaya aniga madaxda dadka adiga farmaajo aniga meeshaan kagama hadlay marka baloogaa iska qaadanaysaa walaalkay cuqdadaa kugu jirta ma matali kartid reer galmudug ma matali kartid dadkaa wanaagsan inaade ka bax meesha ka bax cuqda loogama baahna meeshaan cuqda waa midda maanta halkaan ina dhigtay maanta meesha la taaganya waa aragtaa puntland maanta meesha geysay qabiil iyo qof la fiiriyo iyo hebelow iyo reer hebelow iyo maanta meesha dadka dhigtay waa aragtaa ade dadkii bootaynay waa aragtaa meesha dhigtay dadna maanta way soo saartay laakiin waxaan leeyahay isku xirma war isku xirma oo dadnimo yeesha oo ogaada inaad tihiin tiirka puntland inaad tihiin reer bari wareerada oo tiirka puntland inaad tihiin ogaada oo ogaada in idinka haddii layni waayo aan waxba la noqonayn oo xisaabtama dadku way xisaabtama war rag camal u xisaabtama xisaabtama qofku markuu xisaabtama qiimo yeeshaa xisaabtama in leeyahay oo maskaxdiina fura oo iska celiya tuugada hadda xataa xildhibaanada lasoo wado tuuga kale waayo because kii shalay odagii tuugga ahaa ee kaas lacagta ka qaatay si meesha looga saaro bal fiiri waxay rabaan ma taqaanaa odayaasha wax soo doortaa inta dowladdu joogto 3 jeer inay xildhibaanada lacag ka qaataan intaasay rabaan maalin walba xildhibaan bay dhahayn mooshin ka geeya si mid kale aan u bedelo jab iyo waxay rabaan dowladda intay jirto 3 jeer inay xildhibaanada bedelaan si ay kuma helaan ku soco asalaamu calaykum magacaaga meesha ka soo hadlayso وعليكم السلام جلتم كان شو محمد قال هاي وحكوا لي يدو الرئيس صاحب لا تاي هي حاليسا قلت انا طبعا وحوين معها أرنغت واحد من سنتاي أرنغت وحول روايين وح خريلو مال مرة كعب عمره وإنه وحكوا عيبي هذا نغلب إنه شيء من الشيء كذا ما يشاهدوا كله بباني من عن المرة هذا هذا رتونا بعكيس صفر يسوق حكى كيس الدنيا حتسقط سنين كاف صقل كاف وكهذا هلو ما يبغى مقرأ يعني لا مرة وأنا واحد ساحلين ما هي إلى سوق لنا محامي شو صبر ما هو حال السكر أي برتا كوبا إذا كان لبس فيه يبدو هلو مو هلا ده السلام عليكم ووري ويلك كجري ما كتورت وابي يابنا باي عليكم السلام ويل با كجري وهلا يش هاي وسعه ما كتورتي وتخبط بدتا وما تليفون كان تخبط وسعينا سلام هذا نظيفة وفي عنتاي أباي في عم تلقى سو وعدي والله الصوت بس أنا ما مقلين حاقل قنطلو لا برا في الزراعة يا أم لينا ويل با كجري يتكلم يسمع لا ولي سنجا كجري ميا ما هذا ما يمكن وسعينا لك وسع وكاع مسوي وأنقاصه ويا مريكن كتحديث ما شاء الله وسعوا هلا هذا سامع كون مقرا حبيبتي سامع كون مقرا هيا وسعينا لك وسع سودو وسع وأكو سلامة يا نظيفة وكاع علينا على الأذيات سودو قلبي adduunyada aynu joognaa waa duniya akhtusiraan wallahi qofkaa qaldan هيا هنا
magaalada ay ku soo noqonayaan ka baxay meesha bal waa ku soo dhalinayaan haya go wiil baa ku jiray waxa laga yaabaa wiilkii wili ku jiro labadina leek wada haysataan ka bax wiil baa ku jiray oo markay soo gashay ay ka goysay moota laba lambar isla haystay wiil baa ku jiray oo isaguna soo qabsaday mar oo uu ka go'ay wiilkii ka tuurtay marka hawada ka qarbadantay wiilkaasna waxaan leeyahay sorry in adeer gabar baa ka lambarkeeda ka xog batay hadaad ku soo noqon karto waa ku siinaya waqtigaaga hadaad ku jirto weli maqlayso dii kale waad ka baxdana waxa weeye hala ahaw inta dee ma qabsan kartaan ilma adeerayaalo fartuun shiiqay in adeer balac buu igu yaala dadkii waa soo qabanaya hadda wuu kugu soo baxaya in adeer qabto maasha allah soo way qabsatay السلام عليكم قاشي نظيفة ساتها في عنتها عليكم السلام عليكم السلام ما شاء الله وانكم سلامة يا بارك برنامج كأودك ما شاء الله ما أنت آد ما أخي روضي مركي عيالي هي كنت أبايتون ما شاء الله قرون كسوق عمرنا فرتيه ما شاء الله تبكي ماشي سوي مت ما شاء الله تبارك الله آد بقى وفرحني قول مدك يا البدلان كوحدي بلسبة كله وأم صومالي وأنت غيرنا لبضة كوحبة ما شاء الله وين تقول لي لبضة قال مدك آد بان هلا يا همبلي ماشي على كسيب الوفاة يجمع إن شاء الله وحتى تقول دونتا قرن الصومالي عيارها وحتى تقول دونتا أفريقيا ما شاء الله ما شاء الله وحنا تدرينا إن ماشي ستوب أتكسبين دونتي إن شاء الله هذا إلهي إن شاء الله آدي ولا شيء ما شاء الله وأنا صوت ويننا قلب ذو وحي صلى الله عليه في عنا كل قاضي ورأي سيوت وحنا هاي ما شاء الله تبارك الله قول إيه ونيمو سومالي هذا ما أنت نبت شيء لهين أنت سوقلت يسوع إيمان لهين إيربورت كاس جرون كاس بط أكتر والله واقعي راضي والله ما كأرك فرحان يدل يرد أوجيج سأرك تندرسي يا ما أنت سيسود حدران ما شاء الله تبارك الله إلهي أنو سائدي إلهي أنو ما في على ملهن نبت هذا سندير لهن ما أنت سوق ماذا ماشي سوق ما إيماتين ما شاء الله dadka dawladda noogu jirana waa soo dhaweynayna wiilkii curyaanka ahaa oo garguuranaya oo labada jeer ku tagay inuu garguurto garoonka ku tagay markii dambe waatay inta isqamaqaabiyeen hablaha Soomaaliyeed ay siiyeen gaari uu ku socdo uu ku tagay airport runtii aad iyo aad ayaan ugu qiirooday ma sha Allah waxaan leeyahay inay Soomaali iscaawiso inay wax isku qabato inay maaragtaa ay isgarab istaagto Soomaali dhalinyaro haddii dhalinyaro dad ay ka baxdo dhalinyaro waay waxa qaban karta muddo cudud umadeed waa waxa weey wadan cududiis waa dhalinyaro hadday fiyoobaad waa fiyoobaana moota boqolkiiba boqol aad iyo aad loo fiyo dhalinyarada inay israacdo inay dantoodii ay fahmaan hada tahriibkan iyo dhibkan iyo waxaan way ka soo noqon lahaayeen haddii wadan nabada oo meel ay ku shaqaystaan meel ay ku nafisaan meel ay ku ciyaaraan hadday heli activity fiican hadday heli lahaayeen waxaan u malaynayaa inaysan tahriibi lahayn oo bad iyo magafa aysan gacanta ku geli lahayn alaykum asalaam wax yar ku jira gabadhan aan ka saarayo wax yar marka waxaan هيا باي سنة ولا قصة حتى تدرسنا. مرة وحنا قصة قبل بينا إن شاء الله نبض إلى نوع جيو وحنا رجعنا يعني ما شاء سمعت كسي في عنا سيجارنا كواحدة الله لا يكون قاعد كبد وأم صومالي. أنا وين ما تعرف وين إنت اللي يرد القطة يكون قدرته إن ما ربوا كرهه من ده صار أدنى ما كده سوكو بكره إن قبيل تلقى بحكلية يا دنوا أنا صومالي إسرائيل إنه وين كصار اللي يراعي ماشي تتوقع ماشي كلام أدرس كده قلبهم سميتنا الوصل وين إلى قلبهم لما هو وين كان حتى ماشي معمول عليه من إلى غير كذا وصار صار كم واي ماشي ما لكن واي بين ما كم يا كم واي وكم بينه قبيل استعماله وحو في رجال يا ماشي عن كسب حكا لازم تاسم أبدا مثلا ولا شيء بدل أسوي معي هاي السلام الله عليك هاي حبيبتي أبدا ما تتعين على السيدة دي هيا كسر وراكي waa isku mid ah saate xogaa inay baash xaraarada leedahay oo laacibyada la kala
maaragtay wiilkii intuu yahay reerkayga waana la siiya taabiciyad yani adeegkayga aan ku siinaynaa reerkaaga iska dhaaf adigu qoladan wuu ka tegay markay u diideen reerkiisii xag buu tegay gobolkii ugu dambeeyo ciyaaraha ay ku qaaday asagii baa ka dhaliyahay u diideen waa sida maanta waa nafsi moote marka waxaa weeye waa caadi waxaas wax dhibaatana male waaba la kala gartaa ciyaartoyda marka waxaa weeye hadduu xaggaas ka soo jeeday oo xagga ka dhaliyay waa nin soomaaliyeed waana loo baahan yahay in laba isdhexgal lagu muujiyo ilaa lama diidana in la kala gato waa la ogyahay oo aan lagu kala gato laakiin waxaa la diidan yahay qofkaani oo og tahay qualitigiisa inaad ku reebto kursiga aad haysato ama meel aad fadhido aad madaxa intaa kaga istaagto isagii aad si kale u cunsuriyeyso ka dambena adiga gacantaadi adigu isku toogato taas waa midda keena qola kaleetana ay ka gudubto waxa adigu ku dhaqmayso oo weli wiilkaaga ku samaynayso walaala waa sax meel walba oo soomaaliya lixda maamul goboleed oo somaliland iyo puntland iyo midba ay ugu horreeyeen intigooda waxaa weeye mid dhidfa oo ilaahay khayrka waafajiyey mooyaane koox baa haysata waxay rabaan bay ka yeelaan qofka soomaalinimo danayna hadda ciduu rabo mid ilma adeeriyihiin iyo mid walaaliyihiin iyo waxaas haddaan laga gudbin ku socon doonta oo dadka xuquuqdiisa oo dhan maanta waa dhamaatay taasaa laga gudbay maanta wallahi cashar baa soo baxay maanta taasaa dhamaatay xuquuqdii waddanka oo dhan baa maqan qofkii waxgalka ahaabaa maantay hadduu tago somaliland hadduu tagaa la xir hayaa la leeyahay muxuu kusoo galay sidii waddan baadiya isagoo yunifkiisa aan kusoo galay waxaa weeye kuwa kale haddii loo tago la leeyahay maxaa tahay marka waxaas maaragtay soomaalida way haysataa in looga gudbo wadajir iyo soomaalinimo iyo inay dadku isku dan yihiin isku danna yihiin hadda waxay ku leeyihiin markay haddii la kusoo bagay ay hadlayaan madaxweyne fulaan iyo madaxweyne fulaan inta soomaaliya ay ku dhex jirto maraykan baa ku nooshahay wax madaxweyne sheegaya aan baytan iyo taraam ahayn maarag soomaalida markay xaajiyadu qaado oo markii la fadinayo la yidhaahdo waa 20 milyan lagu sheego maraykanka aragtay 12 saacadood deerad u kala soconayso baa intaad aragtay oo 370 milyan ka badaya dadkiisu yaa wax madaxweyne la yidhaahda lahayn soomaalida maaragtay galmudug iyo kala joogtana baarkii looga deeshabeelana laba madaxweyne kala leedahay oo madaxweyne shabeelle marka waxaasoo dhan in laga gudbo wey waxaasaa laga gudbay dhalinyarada waa kacday hambali aad iyo aad dadka daawanayay oo aan arkay maanta daawanayo ciyaaraha isku yimid wallahi waa guul soomaaliya soo socota iyo khayr soo socda puntland markii lagu qabto puntland marka lagu qabto hirshabelle marka lagu qabto ciyaarihii kale caadiga ah waxaa lala wareegtay si dadku isdhex galo maasha allah wallahi farxad bay ahayd aad culumada laftigeedu waa kala xiran tahay iri culumada puntland baa hadlaysa culumada koonfurta beed baa hadlaysa culumada ma ay isu yimaadeen odayaasha dhaqameedku ma ay isu yimaadeen war waxa dhan ciyaaraha laga dhigo oo laga gudbo waxaas iyo kala qoqobnaan aad thank you so much naadeer aad baan kaaga mahadsanay thank you walaalka ayo walaalo waa mahadsantihiin adaa mudan naadeer aad iyo aad waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay reer galmudug waa u hambalyeynaya maamulka waa u hambalyeynaya galmudug ninka ciyaaraha qofka u xilsaaran gabar iyo wiil wuxuu yahay wallahi ma garanayo laakiin waa u hambalyeynaya in maaragtay isdhexgalka iyo sidaas la badiyo waddanka dhalinyarada la soo dhaweeyo aan loo fiirin gobol hebel buu ka yimid aan loo fiirin reer hebel buu u dhashay aan la dhegaysan dadka meelaha la fadhiya reer gobol hebel iyo reer hebel iyo oo inta xun keliya faafinaya aan la dhegaysan dhalinyaradu isfahanto dhalinyarada waxaa muuqata inay ka gudubtay dadka qabiilka kicinaya dadka inta xun sheegaya wallahi inay dhegaysan baa maanta ka muuqatay taasaa muhiim ah aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan idin leeyahay walaalahay qaaliga ah nabad ku noolaada reer bariga waxaan leeyahay isbedel la imaada waxaan leeyahay ka kaca meesha iskana qabta tuugada aad soo dooranaysaa odayadan waxay nii soo doorta xildhibaan markii la geeyaba dowladda hadday 5 sano iyo 4 sano tahay ku xisaabtama inay intaasoo sano intaasoo xildhibaan bedelaan oo intaasoo lacaga sanad kiba qaataan iyaga waayo problemku iyo iyaga naftooda iska qabta xildhibaanada naftooda waxaan leeyahay hadday naasideed la caybiyo sidoodii ilaahay uga baqaynin oo runta ku sheegaynin iska suga maalinta xaabada naarta aad noqonaysiin iyo maalinta adduunku intuu nabad noqdo dowlad imaato aanu meesha idinka qaadi doono ka dambena xabsiyo aad geli doontaan intaa iska sii gurtaa idin leeyahay lacagtiin dhalinyarada waxaan leeyahay reer bariga war isku xirma awoodiina muujiya idinku abaabul samaysta
idinku noqda dhalinyaro awoodooda soo bandhigta kii xirfad lahow meelaha xirfaduhu ka jiraan oo lagaa rabo oo aqoontaada looga baahan yahay la aad iyadana waxaan leeyahay gobollada kale waxaan leeyahay sida galmudug oo kale muujiya markay dhalinyaradu inay timaado inaydan aan dhihin gobolka numaadan dhalan ma tiid reer galmudug ma tiid inay hebel ma tiid ninka xilka ku fadhiya ma tiid kan meesha xafiiska fadhiya ee aad ku qaadato okay xirfadaada tus markuu ku tuso aad ku qanacdan aad qaadato adeer waxa weeye qof kasta aqoontiisa la tagaa maanta markaan shaqo tagayo ama aan rabo aqoontayda ya anigu midwife baan umulisaa markaan rabo inaan ku shaqo tago imtixaan baan ugalaa lagu qaata haddaan ku baaso waa lay qaadan haddii kale tag baa lay dhihi layma dhahayo yaa tahay iyo reer maata kuwa cadaankaaban la shaqeeya kuwa cadaankaaban tasti la gala kuwa cadaankaaban wax la bartaa adeer sidaasoo kale sameeya aad iyo aad baan galmudug ugu soo dhaweynaya sidaa iyo si ka badan waa idinka filaynaa xirfado badan oon ciyaartoy ahayn kuwa waxaa jira dhaqanka yaqaan kuwa waxaa jira taariikhihii hore iyo isdhexgalkoodina sameeya oo meel kasta ka keena oo dhalinyaro isku dhafa dad isku dhafa la imaada xirfado kala bilaaba waxa weeye ciyaartoyda intaa kaliya ma ahayd waxyaabo badan sameeya taariikhda waad gasheen guushi waad qaadeen koobkana waan sugaynaa waana idin hambalyeynaya waxaan leeyahay hambalyo reer galmudug waxaan leeyahay reer puntland war ogaada ninkaan meesha inii fadhiya iyo waxa meesha ka jira maanta waxay soo bandhigtaan aad baan ugu faraxsanahay in waxa jira ay soo baxaan in xaaladda la ogaado in maaragtay laga gudbo qof kastina inuu is ogaado gobol kastina inuu isku tashadaan soo dhaweynaya taasaan leeyahay markaasaa la isjeclaanaya markaasaa runta la isku imaanaya laakiin inta nin walbiba uu aanu isagu ismuujinin dee adiguna saasaa daba dhilif ahane ismuujiya oo noqda kuwa la baryo kuwa wax baryaha noqonina idinkoo ubucdi ah idinkoo tiirka ah idinkoo maaragtay meeshii ugu mudnayd ah ha noqonina haddana liibaanaha lagu liibaanin ha noqonina kuwaasaa tihiin iskana qabta tuugadan odayada iyo xildhibaanada aad iyo aad baan inii salaamaya beydka likesa facebook fareen ma rabo fareen facebook haddaad rabto inaad isfalow garayso xagga iga soo raac waa beydkii like ka dhigo youtube-ka imow barnaamij waxaa ka jira puntland bes aan uga hadlayo oo nagu magac daray xaqiiqda ka hadla runta sheeg baa la dhaha xaqiiqda bes aa laga hadlay maxaa jira maxaa socda yaa dib ku dhacay qof kasta isagaa sheegaya xaqiiqda ka hadal baa la yidhahda barnaamijkaas marka kasoo qayb qaado youtube-ka follow dheh subscribe soo dheh haddaa hore ila joogto okay haddaadan ila jooginna hadda isoo raac halkaas aan isugu nimaano aniga iguma imaanaysid hebelow iyo kula taageero iyo kula sabood garayno aniga dhalinyaro ay ugu imaanay dhalinyaro la isku xiraay ugu imaanay sida galmudug oo kale qof daacad ah oo ummadda isku xiraaya oo isdhexgelinaya oo ka gudbinaya maskaxda inay hal meel ku xiraato kaasaad igu imaanaysaa aad baan ugu sabood garaya anu dhalinyarada aan ugu oleeya haddaad marka noocaas tahay haddaa laakiin tahay kan $6 diraya ee hooyadii lagu dilaayo ee gurigiisa lagu duminayo ee diidayo wiilashu inay saa usoo baxaan fardu inay saa u ciyaaraan in adduunka aad ku arkado qurux badan haddaad rabin ee rabto adoo dhiig kaa daadanayo adoo meel xambaarsan adoo gacan go-an adoo maaragtay balan soo dhisay soo dhahay kan utada bastoolad ku qabo kan utada riwaayad ka soo samey kan utada aad rabto meeshaadaad ku mahadsan tahay aad iyo aad baa inii salaamaya waa walaashii nabad qaran ini leh thank you so much intii ka qayb qaadatay waxaan halkan uga mahad celinayaa gabdhaha garashada leh gabdhaha qiimaha badan gabdhaha qabiil kasta ay u dhasheen ka gudbay in meel xun ay ku xiraadaan inay hal qolob keliya ay deeqdo ka gudbay ee barnaamijka ka qayb qaatay ee meel kasta igala soo hadlay hal wiil baa ku jira laba wiil baa ku jira wiil jaanis meherin oo gabar baa ka goysay wiilna waa kii hadda u dambeeyey inta kale gabdhay ahaayeen aad baan ugu mahad celinaya hooyooyinkaas ilmaha ay soo saarayaan qiimaha badan kuwaasaan sugaynaa waxaan leeyahay gabdhow haddaa hooyo tahay u istaag inaad adigu noqoto role modelka lagu daydo ha noqonin kan burburka iyo baaba looga dayde hooyaa tahay u istaag inaad hooyanimada muujiso u istaag in dhalinyarada kugu dayato u istaag dhalinyarada inaad maskaxda ka celiso qoraal halkan igu jira oo youtube-ka la igu soo diray oo aan ka aqrin doono youtube-ka wiil baa wuxuu ii soo qoray barnaamij dhalinyarada ah baan ka hadlay wuxuu ku soo qoray weli waad garanaysaa english iyo soomaali isku soo qartaa wuxuu ku soo qoray gurigeena intaan joogay 18 jir baan ahay intaan gurigeena joogay waxaan u maleynaa marka in gurigooda hadda ka tegay oo aan la joogin reerka wuxuu yidhi ilaa intaan 18 ka gaaray oo reerkeena aan gurigooda joogay kostaasaan u qaatay inuu dhihin waan ka tegay laakiin wuxuu dhahay intaan gurigeena joogay hadda laakiin 18 jir baan ahay marka waxaan u qaatay inuu leeyahay macnaha waa ka tegay intaan 18 jir u dhahay oo aan gurigeena joogay weligay gurigeenna oo taleefan hooyaday ku hadlayso oo mar aabbahay hooyaday ku wada hadlayaan oo wax lagu kicinayo oo lacag lagu ururinayo oo colaad looga sheekaynayo oo dalkii lagu caynayo oo qabiil lagu sabadgaraynayo ma ogi weligay ma arkin buu dhahay gurigeenna oo la leeyahay dal baa jira dad dowladda wax qabata imaatay waxbaa socda dhalinyarada soomaaliya nolol haysata waddanka soomaaliya nolol buu haysta weligay ma arkin
maalinta barnaamijyada arkay wuxuu dhahay waxaan ka daawaday wiil saaxiibkayo daawanaya ku dhahay markaan arkay oo uu ii fasiray oo aan sii dhageystay baan wax baaray buu dhahay baan waddanka dib u fiiriyo dhahay baan gobol gareeyo dhahay baan damcu dhahay inaan la socdo wax badan baa iska kay bedelo dhahay haddana waxaan ay dadka kugu xiray bal fiiri marka wiilkaasu ya hadda waan ballansanahay insha allah inaan la kulmo taleefankiisa uu ii soo diray waa inaan la kulmo is aragno si barafeeda isu aragnaan rajaynaya wixiina dhex mara hadduu iga ogolaado leef inuu iisoo fadhiistana waan soo gudbina haddii uu diidana qisada aan isla wadaagno waa inii soo bandhigaya xagga youtube-ka bal fiiri marka hooyoy marka iyo aabo ma munaasaba wiil halkan ku dhashay oo waddankiisa aqoonin oo dhalashada keliya halkan ka haysta oo muslina oo soomaaliya oo dhalinyaro ah oo wax bartay oo la rabo dadkiisii inuu intuu dib u dareemo bal maalin u faa'iideeyo ya xataa hadduu intagayno aqoonta u barta aan uga faa'iideyn bal maalin u faa'iideeyo oo mid baahan meelahan lasoo dhigay xataa xasuustay inuu soomaaliya uu u diro meeshii aad ka shaqayn lahayd haddaad batusto cunugaaga in waddanku baaqo wallaahi qisooyin sheekada uu isoo diray wiilkaan waa maxay markaa akhriyay marka hooyooyinka waxaan leeyahay walaalayaal ka qayb qaata wanaagga ka qayb qaata biliis wanaagga ka qayb qaata dhanka wanaagsan ilmaha ku hanuuniya tiir baynu nahay tiirkii geed baynu nahay geed miro bixiya oo mar kasta aan qalalin oo hooskiisu go-in aynu noqono waana idin salaamaya waxaan codsanayaa biliis youtube-ka follow iyo subscribe daawashaan baana like-ta haddaad cusub tahay subscribe iyo like iyo daawasho haddaa ila joogto daawo barnaamijka inta badan barnaamijkay waxaa la ii soo diraa in daawashada qofku uu fura uga tega I don't know like namaba saartaan marka waxaan codsanayaa haddaadba ii timaado bal iska dhagaysa in wax ku anfaca aad ka heshaa laga yaabaa sababtoo kan 4 saacadood soconaya ee fidnimada lagu kicinayo ee qabiilka lagu diraayo ee wiilasha lagu laynayo ee hooyooyinka lagu caynayo 8 saac 9 saacadood baa daawataa marka anigu markaan u badnahay facebook soo galo baan hal saac ku jiraa inta kaleeto waa 30 ama waa 20 ama waa 15 intaa waqti si daawo aynu isa sabood garayno aad baa inii salaamaya aadna waan ugu mahadcelinaya gabdhihii barnaamijka igala qayb qaatay iyo wiilashiiba waxaan leeyahay thank you so much cafiyo masaamax dhalinyarada reer bari oo isku tashada iskana qabta tuugada inay ag joogto hadda ka dambe waa idinkii aniga